عرسان قرالي هو دمادي خطبتي هو دمادين سوصبحي هو دمادي waxaynu ka shaqayn doonaa codkeennii sidaynu maalkabadda u diyaar garayno waynu sanaadiqda ugu ridnaayo u diyaar garoobina soo maaha soo diyaar ma tihidin waxaynu u baahannahay inaynu intaas abaabulno oo aynu codkeenna sii diyaar garayno oo qof walba meeshii uu ka codaynayaan laga waayay maalinta 13-keeda waxaynu doonaynaa marka ugu horraysa dalkan horumar badan baa madaxweyne siinaaya gaarsiiyey horumarka haddaan rabtaan inuu sii socdo waxaynu u baahannahay inaannu musabixii cabsi doorano war soo maaha waynu dooranaa musabixi soo maaha madaxweynaha shanaad ee Soomaaliya buu noqonayaa soo maaha maalinta codka cidna yaan la waayin yaa cidna waaya codkeenu soo diyaar maaha waxaynu u baahannahay xisbiga kulmiye horumarkaa socda ee ballaadhan ee madaxweyne siinaaya uu dalka soo gaarsiiyey inaynu halka ka sii ambaqaadno waxaan kalsooni weyn ku qabaa musabixi cabdi markuu noqdo madaxweynaha shanaad ee Somaliland inuu dalku horumarkaa ka sii ballaadhan sii gaarayo in tacliinta tayadeeda sare loo qaadayo in caafimaadka sare loo qaadayo inaynu dhaqaalaha sare uga qaadayo in dhallinyarada shaqaalaynteedu sare u kacayso codkayna waxa ku xidhan mustaqbalkiinni ayaa codkiina ku xidhan dhallinyaraa u badan dadka codaynaya dhallinyaro iyo dumar baa u badan khaasatan dhallinyaradu waxay u baahan yihiin meesha mustaqbalkeedu ku jirta inay u codeeyaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaa u codaysaan musabixi baa u codaynaysaan iyo cabdiraxmaan saylici waxaynoo ballana maalinta 13-keeda inaynu isu soo baxno oo codka dhiibanno inaynaan habsaamin inaa kaadhakeenna intaan sii adkaysanno in dadka magaranaysa waxba qori garanaya loo sii sheego sida wuxuu malaamadinayaan oo aana codku ka khaldamin waxaynu u baahannahay maalinta soo socota 13-keeda inaynu dhaqso u dhaarin doonno madaxweynaha shanaad ee musabixi cabdi soo maaha